يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada kanaalkeena cabdifataax media. Hadda boqoshada ugu horeysa iga ilaabi inaad subscribe inoo saarto, aad like aad saarto. like waxay cadeynaysaa ina cashirka aad fahantay. insha Allah taala in cashirka ay sii gudgaleynaa nala socda. aad baa u maasantihiin sida quruxda badan aad inoo socotaan mar walba. cashirka ay sii gudgaleynaa. What is a knowledge? Knowledge. What is a knowledge? What is a knowledge? Waa maxay aqoonta? What is a knowledge? Waa maxay aqoonta? A knowledge is the key of progress. A knowledge is the key of progress. A knowledge aqoontu is the key waa furaha of progress ee horumarka. A knowledge is the key of progress. A knowledge aqoontu is the key waa furaha of progress ee horumarka. Knowledge aqoon waay, key furo waay, progress ni horumar waay. A knowledge is the key of progress. aqoontu waa furaha horumarka. What is a sanitation? What is a sanitation? Waa maxay nadaafada? Sanitation nadaafad waay. What is a sanitation? What is a sanitation? What is a sanitation? Waa maxay nadaafada? A sanitation is half of a grid. A sanitation is half of a grid. A sanitation nadaafadu is half of a grid. waa imaanka kala barkii. A sanitation is the half of a grid. A sanitation is the half of a grid. waa nadaafada imaanka kala barkii. A sanitation is the half of a grid. A sanitation nadaafadu is the half of a grid. waa imaanka kala barkii. What is a polite? What is a polite? What is waa maxay a polite? aadaab ama akhlaaq isku mid waa labadaba. waa isticmaali kartaa polite, aadaabna u isticmaali kartaa, akhlaaqna u isticmaali kartaa. What is a polite? waa maxay aadaab? What is a polite? waa maxay aadaab? A polite is the first step of the education. A polite is the first step of the education. A polite is the first step of the education. A polite aadaabta is the first waa tilaabada of education. Of the education ee waxbarashada. A polite aadaabtu is the first step of the education. waa tilaabada ugu horeysa ee waxbarashada. A polite is the first step of education. aadaabta waa tilaabada ugu horeysa ee waxbarashada. A polite is the first step of education. A polite is the first step of the education. A polite aadaabta waa tilaabada ugu horeysa ee waxbarashada. A polite is the first step of education. A polite is the first step of the education. A polite aadaabta is the first waa tilaabada of the education ugu horeysa ee waxbarashada. Have you a book? Have you a book? ma haysaa book? Have you a book? ma haysaa book? Have you a book? Have you a book? ma haysaa book? Yes, I have a book. Yes, I have a book. Yes, ha, I have a book. Ha, waxaan hayaa book. waxaan hayaa book. Yes, I have a book. Yes, I have a book. Ha, waxaan hayaa book. Yes, I have a book. Ha, waxaan hayaa book. Where is your book?
Where is your book? Where is your book? Where is your book? Aaway buugaaga? Where is your book? Where is your book? Where is your book? Aaway buugaaga? My book is on the table. My book is on the table. My book, buugayga, is on the table. Wuxuu saaran yahay miiska. My book is on the table. My book is on the table. Wuxuu saaran yahay miiska. My book, buugayga, is on the table. Wuxuu saaran yahay miiska. My book is on the table. Buugayga wuxuu saaran yahay miiska. Where is your pen? Where is your pen? Where is your pen? Aaway qalinkaaga? Where is your pen? Aaway qalinkaaga? Where is your pen? Where is your pen? Aaway qalinkaaga? My pen is in my pocket. Pocket. My pen, qalinkayga, is in my pocket. Wuxuu ku jiraa jeebkayga. My pen is in my pocket. My pen is in my pocket. My pen, qalinkayga, is in my pocket. Wuxuu ku jiraa jeebkayga. My pen is in my pocket. Wuxuu ku jiraa jeebkayga. My pen is in my pocket. qalinkayga wuxuu ku jiraa jeebkayga. Waa maxay kalsoonidu? In uu qofka naftiisa ka dhaadhiciyo kolka horeba in aanu waxba qaban karin. In uu iska dhaadhiciyo in uu yahay qof liita oo aan dadka la jaanqaadi karin. In uu noqdo qofka ka baxa soo bandhigida fikirkiisa. In uu ka baxo ka jawaabista su'aalaha uu garanayo. In uu hamigiisa ka tanaasulo isaga oo ka baqanaya guuldaro ku timaada. Wuxuu ka baqaa guuldarada taasoo keenta inuusan